abaaraha iyo colaadaha inta badan ku soo noqnoqda dalka Soomaaliya ayaa waxa ay saameyn ku yeeshaan nolosha dadka nugul ee xoolahoodii iyo hantidoodii ku waayay abaaraha iyo colaadahaasi. Aqoonyahanka Soomaalida ayaa ka digaya saameyn xoogan oo ka dhalata abaarahaasi iyo colaadaha ka jira geyiga Soomaalida. Haddaba sidee iyada oo la iskaashanayo wax looga qaban karaa dhibaatooyinkaasi? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaheena magaalada Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere weydiiyey Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida. Yaasiin aad u mahadsantahay. Intaan su'aasha guda gelin waxaan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo colaadda ka soo cusboonaatay magaalada Boosaaso. Magaalada Boosaaso magaalo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed, ila dhaqaale u ah, magaalo nabad ka jirtay 20 sano u dambeysay. Allah khayr ka siiye salaadiinta deegaanka, dawladda oo iskaashanayna xaqiijiye inaan deegaankaas dib ka dhicin. waxaan ku baaqayaa in arintaas sida ugu dhaqsiyaha badan la xal degdeg loo helo, la xaqiijiyo in dadka danta yar ee dhibaatada ka soo gaartana ay ku soo noqdeen guryahooda. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa in arintaas degdeg xal degdeg loogu helo. dhibaatooyin badan dalka ka jira Yaasiin, sida adiga aad sheegtay. dalka guud ahaantiisa waxaa saameysay abaar aad u adag, xilligii roobka oo la sugayo soo daahay. sida aan la socono dad gaaraya 2 ilaa 3 milyan oo qof ayay abaartu aad u saameysay, toos u saameysay, ilaa 1 milyan oo kale si dadban bay u saameysay. waxaan ognahay sida ay xaqiijiyeen hay'adaha arrimahan ku mashquulsan in tiro gaarayso 133,000 oo qof inay barakacday. arintaas dhaawac weyn, dhibaato weyn bay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku haysaa. waxaa taa barbar socda xaqiiqdii iyadana waxaan jirin ku talagal iyo diyaar garow in abaarahaas wax laga qabto ama laga hortago. sidaas daraadeed waxaan ku baaqayaa dhankeyga in si degdeg ah wax looga qabto. sida la socotaan magaalada Muqdisho guddi baa laga magacaabay oo odayaal ganacsato isku tageen. guddigaas waxaan kaloo ku talinayaa inaysan noqon kaliya guddi Muqdisho jooga in deegaanada abaartu ay saameysay guud ahaantiis guddiyo laga magacaabo, lacag loo aruuriyo, gaar ahaan dadka Soomaali qurbaha ku jooga, ku gudaha ku jiro, hay'adaha caalamiga ah in dhammaan aan iska kaalmeysano si dadkaas abaaruhu ay saameeyeen si degdeg wax loogu qabto oo xaaladooda maalinta ka dambaysa ay ka sii darayso. dhaqaale xumida Jibriil oo ka jirta dalka Soomaaliya ka soo waxaa jira musuqmaasuq iyo waxyaabo badan oo dadka loogu talagalay oo aan la gaarsiinin. ma jira dadaalo ku muuqda in dadka Soomaalidu mar walba abaaruhu dhacaan in laga daba tagin ee laga hortagi karo. xaqiiqdii dhibaatada ugu ballaaran ugu dhacdaa waxa ay tahay qorshe ma jiro. inkastoo ay jirto wasaarado ka jiraan dawlad goboleedyadu, dawladda dhexe ay ka jirto, hay'adaha caalamiga ay jiraan, haddana ma jiro qorshe habaysan oo looga hortago xal degdeg ah si loogu helo. hortaga waxaan ula jeedaa qorshooyin cad oo la yiraahdo abaaruhu moogsoonta roobka intuusan imaan waa la qiyaasi karaa imaatankiisa waqtigu soo beegan yahay. Soomaalida dhaqan baa jiro, ma jirto qorshe rasmi ah. qorshahaas marka waa lama huraan in aad looga shaqeeyo. waliba xaaladda hadda abaartu ku soo aaday Yaasiin ayaa waxay tahay xaalad siyaasadda dalku aysan fadhin, xasilooni darro badan ay jirto, kalsooni darro badan ay ka muuqato dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka. arintaasna waa sii adkaanaysaa. arinta musuqa sideedaba bani aadamku waa iska dib badan yahay, dad baa iska jiro ka danaysto dana kale. inkastoo dadku intooda faraha badan leh hantidaas loogu talagalay dadka masaakiinta cidii dhacda iyadan ba meel wanaaga ka gaaraynin, laakiin musuq wuu jiraa. musuqaas waxa looga hortagi karaa iyadoo iska kaalmeystaan dawlad goboleedka, dawladda dhexe, culumaa u diinka gaar ahaan iyo ganacsatada ay ka wada shaqeeyaan in la xaqiijiyo waxa yarka ee la soo aruuriyo amba kaalmooyinka loo qorsheeyay in la gaarsiiyo dadka masaakiinta ah ama dadku abaaruhu ay saameeyeen in la xaqiijiyo inay tagto. xaqiiqdii tii ugu dambeysay aan tusaale u soo qaatay fatahaadii ka dhacday Beledweyne iyo gobolada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. culumaa diin fara badan oo ka tagay dalkaasi Kenya, qaar dibadda ka yimid, qurba joogta ka timid, lacagtii waa la isku diray. waxa la isku dayay lacagta in la xaqiijiyo la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed. marka waa isleeyahay way jirtaa, wayna jiri doontaa weligeed allaheed, laakiin waa lama huraan in qorsho cad la yimaado. qorshahaasna uu noqdo mid lagu xaqiijinayo dadkii in wax la gaarsiiyo, in la xaqiijiyo in hantidii iyo wixii loo soo qorshay dadkaas inaysan dhaxda ku dhuminin. iyo qodobka ugu dambeeyo ah in intaysan waxaan dhicin ka hor aan ka taxadirno. waliba gaar ahaan waxaan ku xasuusinaa hadda laftigeeda waxaa macquul roobka markuu yimaado waxaan sheeg ku jirin webiga Shabeelle iyo Jubbaba inay fatahaad sameyn doonaan. caawo aan kula hadlayo maanta aan kula hadlayo wasaarad amba hay'ad amba koox caawo shaah cabayso oo dhahayso waxa soo socda maxaan ka qabanaa malaha. marka waa nasiib xumo in maalin kasta dhibaato nagu dhacdo haddana diyaar garow aysan jirin iyadoo awoodii aan leenahay, dhaqaalihi aan haysano, dadkeena aan haysano. marka in taariikhda aad looga taxadiro muhiimad qaas ay leedahay.
jabiil ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta doonaya dalka Soomaaliya isbeddelay inay ku sameeyaan waxaad ku mashquulsan tihiin sidii aad kuraas ku heli lahaydeen badalka qaar leeyahay laakiin dadkii indhahoodii waxaad ka jeediseen abaarahan iyo dhibaatadan qaabka doorashaduna waa mid jiitamaysa arrimahaas si xal loogu heli karaa waxa la muhraana waa runta dadku waayaan marka idaacadaha daawato ama meelaha aad ka hadasho dadku waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddu yaa la doortay yaa baxay mid baa ma dhacay waxaan rabaa laba arrin beenan ka yiraahdaa arrinta doorashada Soomaaliya waxay isku bedeshay yaasiin oo dhaqanka geel ee Soomaalida geel baa la kala dhacaa hadda waxay maraysaa doorashada in kala dhaco waana nasiib xumo xaqiiqdii dalkan Soomaaliya sida kaliya ku badbaadi karo sida kaliya xaaladda ugu jirta looga bixi karo waa inuu doorasho aadaa doorasho la isku waafaqsan yahay raali laga wada yahay doorasho la'aanteed waxay keenaysaa dalka qatar oo galna tusaale yarna oo ku siina wadankii hadda sida ula socoto abaaraha hadda ka hadalnaa ka jiro waxa ka jira wadankii ururadii nabadiidka ahaa dhibka badnaa mataqaana ummadii dhibaatada gaarsiinayay deegaano badan oo ay kamid tahay gobolka Galgaduud oo kale ama Galmudug hoos yimaado qaybo kamid ah Hiiraan oo kale qaybo kamid ah mataqaana shabeellada hoose waxa ka muuqdo qolooyinkii dagaalkan galay waxaan sheegayaa nabadiidka dagaal bay ka wadaan sicir bararkiiba kor u kacay sidaan ku sheegayo oo waliba qutriyomkii ama qudurigii dadka masaakiinta ahaa ay qaadanayeen ama cunayeen ayaa cirka isku sharay xilligan hadda ku meel gaarka aan ku jirno marka doorashada ayaana sabab u ah waxa kale oo iyadana jiro dhan kale rabaa inaan ka tuso beesha caalamka arrimaha Soomaaliya caawinaysa hantidii waxyaabo lagu caawinayo Soomaaliya waa la joojiyay cid ku mashquulsan ma laha sida la socoto shalayto oo bisha 12 ahayd golaha ammaan go'aan buu ka qaatay arintii Amazon sababtoo ah ciidankii Soomaaliya hadii la wareegi lahaayeen xataa la wareegi lahaayeen awoodda ama amniga la wareegi lahaayeen iyadoo doorasho dhicin oo wax la dooran la kalma wareeji karo marka maqnaanshaha ama dib u dhaca doorashada dhinacyo badan oo ummadda Soomaaliya u taabtay waa marka muhiim in doorashada xal loo helo oo laga shaqeeyo laga wada shaqeeyo dhanka kalena waxa muhiim ah iyadoo taajirto dawladda hadda kusimaha ah ku meel gaarka ah oo waqtigeeda dhamaaday inayan iska indhatirin xaaladda qatarta ah ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ka haysta abaaraha sicir barka ka haysto arintaasna waxa la rabaa in waqti la geliyo oo la isku hayo dadka musharaxiinta sida ka dhawaajis laftigooda waxa looga baahan yahay inayan ku mashquulin kursi kaliya dadkii la xukumayo laftigooda noloshooda u baahan la badbaadiyo noloshooda wax lagu qabto u baahan haddaan taa wax laga qabanina waxay keeni doontaa yaad xukumaysaa yaad wax u qabanaysaa marka cabsi waxa igu jirto dhankeyga ah in dadku ay ku mashquulaan kursi baa la dhac sida xoolaha oo kale laakiin aanan laga fikirin ummadda dhibaatada haysato sicir barka ka jiro colaadaha ka jiro arrin yar waxaan rabaa tusaale inaan ku soo qaato maanta aan kula hadla xalayto deegaan u dhaxeeya gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan beelaha isku dagaalamaya oo duruufo keenay yaani wax ka xanuun badan ma laha ma aha kaliya Boosaaso in dagaal ka jiray deegaano badan oo Soomaaliya arrimahaasna cid ku mashquulsan hadda iyo muuqata ma laha marka waa run musharaxiinta anagoo dhan kulligeen iyo dawladda hadda kusimaha oo waqtigeeda dhamaaday in laga shaqeeyo dalka doorasho inay aado si xaaladahan xal loogu qabto inta lagu mashquulsan waa lama horaan xaaladahan jira xal loo helo kaasi waxa uu ahaa Jibriil Ibrahim Cabdulle oo kamid ah aqoon-yahanka Soomaalida waxa uu magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.